waaqica iyo dunida mala-awaalka inta badan waxa loo adeegsadaa eray bixinta dunida mala-awaalka waaqica fogaan aragga iyada oo loola jeedo isgaarsiinta baraha bulshada ee dijitaalka ah oo ah cilmi ay bulshadu aad u danayso baryahan dambe oo la adeegsado eray bixinta mala-awaalka haddana baraha bulshadu waa duni dhab ah oo ah dunida tiknoolajiyadda iyo kombiyuutarada waxaase ereygan loogu ladhay in aanay xidhiidhada baraha bulshada dhexdeeda ka dhacaya ahayn kuwa toos ah oo foolka fool ah baraha bulshada waxaa ku wada xidhiidha dad dunida dhabta ah ku nool oo adeegsanaya aalado ay sameeyeen shirkado gaar loo leeyahay oo ay maamulaan kana shaqeeyaan dad siyaasadaha dejiya oo leh dana dhaqaale iyo ideolojiyado kala duwan baraha bulshadu waxay warbaahintii hore u jirtay kaga duwan yihiin teknikaalka heerka sare ah oo suuro gelinaya gaarsiinta iyo isla falgalka degdega ah kulmayaan ama isku arkayaan dad kala waqti ah oo goobo kala fogna kala jooga ama ku kala sugan baraha bulshada waxaa ku wada xidhiidha balaayiin dad ah iyaga oo kooxo kala duwan ahna soo gelaya nuxurro kala duwanna soo geliya eegayaashu ma xakameeyaan tiknoolajiyadahaas iyo siyaasadooda waxaana gacanta ku haya cidda iska leh oo dhaqdhaqaaqooga la socota oo si joogto ah horumar ugu sameeya barahaas si ay u helaan inta ugu badan ee adeegayaal ah oo abuura baahiyo cusub istiidadu halka ay ka jirtaa waa in dadka adeegsadaa uun u leeyihiin aalado dadka ka dhexeeya balse mulkiyadeeda rasmiga ah ay dad gaari leeyihiin adeegsi ahaan waa bara guud oo dadka ka dhexeeya si dejinta siyaasadaha lagu hagayo kooto u xidhan dad kale barahan waana istiido si tartiib ah dadku ugu ogaadeen tijaabada adeegsigooga intii uu socday dagaalkii khaliijka ee labaad Jembe Dilar ayaa ku dooday in warbaahinta casriga ah weliba TV-ga oo xilliga calankiisu taagnaa aanay matelin waaqica dhabta ah si ay tahay mid ay iskoodu abuureen waaqic cusub oo buunbuunin ah si kastaba ha ahaatee baraha bulshadu umay samaysmin in ay matalaan waaqica dhabta ah oo ay noqdaan warbaahin la rumaysan karo ama la beenin karo baraha bulshadu waxay kaalin weyn ku soo kordhiyeen waaqica bulsheed iyo ka siyaasadeed waxa ku wada xidhiidha bulsho kala duwan waxaana lagu baahiyaa xogo laga ganacsado baa ku wadaaga khibrado iyo arrimo gaar ah waxaa lagu soo bandhigaa madadaalo iyo arrimo diineed waxaa lagu soo gudbiyaa wada sheekaysiyo maangal ah iyo hadal tiro labadaba dhinaca kale waxaa lagu soo gudbiyaa faynta iyo wararka warbaahineed sidaana waxaa badanka adeegsada warbaahintii soo jireenka ahayd markan waxaa loo arkaa in warbaahintu buuxinayso kaalintii warbaahinta si farqiga u dhexeeya waa sida fudud ee wax loogu wadaagi karo dadkuna uga falcelin karaan oo xataa loo marin habaabin karo nuxurka dabagalka iyo korjoogtaynta baraha bulshada marka la joogo waxa ay istiido dhex taallaa xorriyadda iyo dabagalka waxaa looga dan leeyahay in la ururiyo xogta dadka adeegsada baraha bulshada iyo sida loo adeegsanayo dana kala duwan qofkana lagu xadgudbaayo xogtiisa gaarka ah ee dhowrsan ujeedkuna ma aha in la hor istaago xorriyaddiisa hadal iyo cabir si waa in xog laga helaa marka shirkadaha baraha bulshada lihi dhacayaan xogta dadka adeegsada barahooga iyaga oo ka ganacsanaya ma aha in ay dad cayiman oo aqoonsigooga laga garanayo la dabagalayo si waa in tilmaamo guud iyo xogo lagala soo baxo dhaqdhaqaaqa dadka adeegsada bartaas waxa ay ururiyaan waxa koox waliba wadaagto waxyaabaha la iskaga midka yahay si loo sameeyo kooxayn si guud cid waliba ay og tahay in baraha bulshada internetka lagu urursado xogaha oo la iibgeeyo sidaa darteed waa wax badanka qofka adeegsanaya laftiisu og yahay oo aan u baahnayn dood kale difaaca dadka adeegsanaya baraha bulshadu waa dood taagan oo xataa ka aloosan dalalka dimuqraadiga ah si kasta oo loo keeno habab xogta lagu ilaalinayo waxa la hindisayaa uun qaabab kale oo cusub oo ururinaysa xogta adeegsadayaasha shirkadaha baraha bulshada leh iyo dadka mashaariicdooda u urursada xogaha adeegsadayaasha baraha bulshadu waxa ay dan ku qabaan ilaalinta xorriyadda dadka wax ku soo gudbinaya baraha bulshada waxaanay dejiyaan siyaasado dadka xorriyad ballaaran lagu siin karo si ay si kasta oo macquul ah dadku wax ugu biraan shirkadahaasina u helaan tirada ugu badan ee adeegsadayaal ah sidaasna ku helaan xogta u badan marar waa suuragal inay xorriyadda hadalka xadidaan daadis maamul kaga yimid ama dana gaar ah waxaa jira hab kale xorriyad ka qaadid dadban ah oo shirkadaha baraha bulshadu leeyihiin waana inay markasta soo kordhiyaan qaabab cusub oo adeegsadayaal badan soo jiidata horena waqtiintii hore ka badan waxa ka sii dhaxaya xataa xukuumadaha dimuqraadiga sheegta ee ilaaliya xogaha gaarka ah ee qofka xakameeyana habdhaqanka
shirkadaha xogta u baahani waxba kama qaban karaan isbeddelka joogtada ah ee baraha bulshada lagu samaynayo. Khawaarismiyada abla-ablaynta loo adeegsanayo iyo hababka cusub ee dhaqdhaqaaqa adeegsadaha galaya. Isbeddelka anshaxa cilmi baadhiso badan baa laga sameeyey raadka qotada dheer ee baraha bulshadu ku leeyihiin dhaqanka bulshada iyo anshaxa guud iyo ka qofeedba. Waxaa jira hadallo guud oo ku dooda inay baraha bulshadu abuurayaan dad cusub, aadamo cusub oo aadamaha baraha bulshada ahina lanayo. Muran kuma jiro in tiknoolajiyadda siiba ta lagu wada xidhiidhaa ay wax weyn ka beddelayso xidhiidhada dadka iyo dhaqanka bulshada. Waxaan akhriyey maqaal falsafadaysan oo ku doodaya in gebi ahaanba la iska joojiyo baraha bulshada, sababtoo ah ma aha tiknoolajiyad la taaban karo oo aynu maamulno sida gaadiidka cusub ee dunida ka jira. Waxa uu ku doodayay maqaalkaasi in baraha bulshada dadka lihi xukumaan qorshihiisa leeyihiin. Qorshaha u weyn ee ay leeyihiin dadkaasina waa in adeegsadaha muddada ugu dheer lagu hayo shaashadda uu adeegsanayo, waxaanay ku suuro galaysaa in maalinba wax cusub lagu soo daro, markasta dareenkii hore badan looga helo adeegsadaha. Shirkadaha baraha bulshada leh ujeedkooga u weyni waa kan, se waa maxay ujeedka qofka wakhtiga badan u huraya ee adeegsanaya? Waa ujeeddo iska fudud, waana rabitaanka ah inuu adeegsadayaasha kale soo jiito, la aqoonsado oo uu caanimo helo. Waa in dadka ula falgalaya jeclaadaan, qadariyaan amaba u soo jeestaan. Haddaba caanimo raadinta adeegsaduhu ma wax wanaagsan baa mise waa wax taban marka xagal anshax laga eego? Horta marka koowaadba waa inaynu qirno in arrinkani yahay wax dabiici ah oo aadamuhu asal u leeyahay. Waa dhaqanka dhaladka ah ee aadamuhu rabo in uu bulsheeyo, dadna dhex galo oo uu ku xidhmo. Bilowgii baraha bulshadu waxay ahaayeen kuwo dad kooban isku xidha kooxo yaryar oo marka horeba yaqaan ayaana iskula xidhiidhi jiray. Waana waxa buuxiyey kaalinta rabitaanka aadamaha ee ah in uu bulsheeyo. Se mushkiladdu hadda waxa ay ka taagan tahay in baraha bulshadu noqdeen meel laga abbaaro dad aanad aqoon, wax isku keenaana aanu jirin. Markan dambe baraha bulshadu waa ay dhaafiyeen kaalintii ahayd bulshaynta, waxaana isku beddeleen